أنا مدحوينها مامولك خاتمه قدوميها أعد ميل أهله قدوميها أعد حزب أعد ويكو دهلا يا ابنه ويكو قدوميها كحجين كحزب ثلاثة هي سوماليلاند قولياش لبض قولي وزير هذا مامولك خاتمه وزير سوماليلاند هلكم فردية wariyaasha odayaasha iyo waxgaradka halka ka fadhiya iyo gudiyadii wada hadalada labada dhinac intaba waxaan u soo gudbinayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh in muddo ah waxaa soo socday wada hadallo u dhaxeeyay labada maamulka Soomaaliland iyo Khaatumo meelo badan baan shir ku soo qabanay ama ku kulannay adsaba ka mid ahayd sanadkii hore Djibouti iyo markii dambe oo halka noqday kuwa aynaba ahina waaba jireen ama bilow aha ama marar dhexe aha dhamaantood waxa lagu soo waday wada hadallo la doonayay in dhibaatooyinkii iyo dilkii iyo dhibaatooyinkii ka jiray deegaamada tan aan soo hodimaha kale ahay sidii loo tirtiri lahaa ama loo joojin lahaa loogana tashan lahaa aayaha ummadda gobollada waqooyi degta sidii ay nabadgeliyo haddii kuwii hore dhibaato iyo dhib badan ay soo kala dhexmatay in kuwa dambe loo sameeyo nabadgeliyo iyo wax aayahooda ay kaga tashadaan ama ay wax ku bartaan ama ay ku walaaloobaan ama ay muxuu ahaa isla same time waa deegaamo lagu kala hormaray oo deegaamada sorry Sanaag iyo Cayn la yiraahdo waa deegaamo dib u haray weeye laakiin deegaamada kale deegaamo wax laga qabtay weeye iyada lafteeda cadaalad darrada meelaha ka timidna xaggan baaba loo tirinayay badideeda dhinaca midiga fadhida sidii bal looga dayn lahaa ama dadkana sidii uu ku walaaloobi lahaa ganacsi iyo wax badan baa ka dhaxeeya iskagana xidhan waana dad derisoo kulley hadii labada gabdhood ee foodele bay silaya caruurta ah dhinacyada oo dan ay ku kala maarmaan ma jirto sidii hawlaha nabadgelyada looga dhalin lahaa mustaqbal dambe iyo aayaha kan dambe loo sameyn lahaa baa in badan lagu soo tala jiray weli ma dhamaan laakiin waxay maraysaa meelo aad u fiican waxaan noo dhaqanaa anaga markaanu ka imaano deegaamada Khaatumo ama magaalada Buuhoodlo haatan saldhig ayagu yahay inaan dadkayga kala soo tashanno ama aanu wixii ay qabaan afkaar ka soo qaadno halka kan wixii go'aamay lagu gaadhana loogu gudbiyo waa laga maarmaan go'aamadan halka ku qaadanayaan dadkayga kula noqono ka wacyigelino ka tashanno dhibaatooyinka maxaa inagu acaynkan maxaa kan nagu dhawaana hadii ilaahaymo lagu qaban doono burco shirkaas hadii ilaahay idinkiisa ay ku noqoto loogana sii gudbi doono sidii marba tadawur loo sii gaari lahaa iyo maxaa horumar waan idin salaamayaa waxaan umaleeyaa maalintii horeysay Hargeysa laga qabto warbaahin intanoo qof oo soo taagan oo mikrofoon la yaacaysa waxaan umaleeyaa kuwii aanu hawada iska caay jiray aanu wax iskaga oran jiray tan lafteedaan baguul u arkaa inkastoo cimrigaaga raageel dhalaayana waa ku tusaabuuri cimrigaaga dhaxay waa nasiib wanaag bay la tahay run marka loo eego waxaan u maleynayaa intii dawladda Soomaaliya burburtay laba jeer baan Hargeysa arkay oo aan transit ku ahaa midooba gaari ku maray mid walba waxaan islahaa ilaahu aan lagu garanba kuma niyadeedina kuma jirin halkan magaalada dhaqan ambassador dhaxaysa wax ka duubi doonta cod ka duubi doonta ma qabin laakiin waa cimrigaaga raagageela ay ku tusaa waa taagnaa maanta waxaan idin sheegayaa qoliyihiina warbaahinta reer Somaliland wax walba laanta yar la daba taagan waxaan yar laanka waxaan kan caynka waa muxuha wixii muxuha waa muqaddas waa caynka wadanta muqaddasa iyo ilaahay baa markood amaradiisa muqaddasa hadii beedankeeda leeyahay laantu muqaddas ma aha waynu iskala guurin hadeen doono jil la bayno la baxayna qurac bayno la baxayna doonto waynu ku heshiin wixii dadku isku afgarto aad iyo aad baan idin salaamayaa waan mahadsantihiin